nidaamka hirgelinta doorashooyinka iyo bulshada rayidka. bulshada rayidka waxaan ogsoonahay inay door badan ka qaateen isbedeladii dalka ka dhacay, khaasatan waddooyinkii dhibaatooyinkii badanaa lasoo maray xilligii dowlad la-aanta ahayd iyo xilligii dowladda kadibba, intaana ay ahaayeen dad buuxiyey kaalintii dowladda laga rabay. si marka doorashooyinkii u dambeeyeen ee qayb ka ahayd markii laga reebo kii 2016 ahaa oo runtii aan wada dareemi karno dhibaatadii ka dhacday inay sabab badan u ahayd waxyaabihii ka maqnaanshaha bulshada rayidka. si marka taa loogu waantoobo doorashada hadda soo socotana ee la mid tahay doorashadii 2016 waxay bulshada rayidku sameeyeen guddi howlaadyo ka shaqeynaya doorashooyinka. guddi howlaadyo isugu jira 3 guddi: guddiga wacyigelinta iyo u qareemidda, guddiga kormeerka iyo qiimeynta doorashooyinka, guddiga xiriirinta howlaha doorashooyinka. guddiyadan waxa ay ka shaqeyn doonaan howlaha doorashooyinka, kuwaas oo la qaban doono ka hor doorashooyinka, inta ay socdaan doorashooyinka iyo doorashooyinka kadibba. 3daas qaybood ayay ka shaqeyn doonaan guddiyadaneeto. qaybta ugu horeyso ah doorashada ka hor howlaha la rabo in la qabto oo bulshada rayidku ay qabanayso. wacyigelinta bulshada. bulshada rayidka iyadoo ka duuleyso baahida loo qabo in bulshada Soomaaliyeed ay si firfircoon uga qayb qaadataan doorashooyinka, isla markaasna fahan fiican ka ogaadaan habka doorashooyinka. bulshada rayidka waxa ay qaabin doontaa barnaamijyo dadka lala socodsiinayo geedi socodka doorashooyinka iyo sida ay uga qayb qaadan karaan howlaha lagu xoojinayo in ay dhacaan doorashooyin la aqbali karo oo xasilooni abuuro. bulshada rayidka waxa ay siin doontaa wacyigelin ergooyinka kaas oo ku aadan fahanka mas-uuliyadda ka saaran codbixintooda. 2. xaqiijinta qoondada haweenka iyo dadka laga tiro badan yahay. bulshada rayidka waxa ay u qareemeysaa sidii loo hubin lahaa qoondada haweenka 30% oo aan aaminsanahay inay waajib tahay, kaas oo ku imaan doonto in 3 xildhibaan hal dumar noqdo. sidoo kale waxa ay xaqiijin doontaa sidii doorashooyinka u noqon lahaayeen mid laga wada qayb galo oo aan lagu xaqirin dadka laga tirada badan yahay haddii ay ahaan lahaayeen in la doorto ama ay wax doortaan. 3. kaalinta bulshada rayidka ee xulista ergooyinka. doorashada 2020 oo ah mid dadban waxa ergooyinka dooranayo xildhibaanada lagu soo xulayaa qaab qabiil, kaas oo kursi kasta ay dooran doonaan 101 ergo sida lagu heshiiskii Muqdisho. bulshada rayidka waxay qabtaa in ergooyinka laga soo xulo qeybaha kala duwan ee bulshada sida soo socoto: in 10% ergada kursi kasta ay noqdaan odayaasha, in noqdaan 10% ganacsato, in 30% haween noqdaan, 30% dhalinyaro noqdaan, 10% culamo diin, 10% aqoon-yahan. waxaan ujeedadan ka leenahay waxay tahay in ergooyinka soo xulitaankooda aanan odayga dhaqanka kaliya lagu siman ee noqdaan guddi ka socdo kursiga qabiilka iska leh oo ka kooban xubnahaas aan soo sheegnay oo kor ku soo sheegnay oo tiradaasna ku kala imaan doonaan. haddaba si loo xulo ergooyinkaas waxa ay bulshada rayidka ahi xaqiijin doontaa fulinta shuruudaha ku cad habraaca doorashooyinka si loo xaqiijiyo in la doorashadu noqoto mid ka fog musuqmaasuq iyo isdabamarin lagu sameeyo xuquuqda musharaxa xildhibaan iyo kan wax dooranayo. waxaa kaloo bulshada rayidka ay soo jeedinaysaa in soo xulista ergooyinka loo xil saaro guddi ka socda qabiilka kursiga leh, kuwaas oo ka koobnaan doona bulshada rayidka oo aan abaabulneyn sida odayaasha dhaqanka, culamo diinka, haweenka, dhalinyarada iyo ganacsatada oo ah tirada aan kor ku soo sheegnay. bulshada rayidka waxa ay u xilsaari doontaa goob kasta oo doorasho ka dhaceyso in ay ka howlgalaan guddi ka kooban 6 xubnood oo ka kala ah xubin ka tirsan isu taga bulshada rayidka ee heer qaran iyo 5 xubnood oo ka imaanayo goobta deegaanka doorashada ay ka dhaceyso. taa waa habka inta doorashada socoto howlihii la qabanayay. waxaan u galaynaa howlaha xilliga doorashooyinka socdaan haddaan galaynaa. taa waxay ahayd wixii ka horeeyey doorashooyinka maalintii dhacayaan, xilliga doorashooyinka ay qabsoomayaan, korjoogteen iyo hubinta nidaamka doorashada u socoto. bulshada rayidka oo khibrad u leh korjoogteenta iyo hubinta doorashooyinka waxa ay la socon doonaan
habka doorashooyinka u dhici doonaan iyagoo la shaqayn doono guddiga doorashooyinka waxayna hubin doonaan xubnaha u tartamaya xilka xildhibaannimada iyo ergooyinka dooran doono. 2 kormeerka iyo qiimeynta fulinta habraaca nidaamka doorashooyinka xilliga ee doorashada socoto. Bulshada rayidka ah waxa ay indhaha ku hayn doontaa sidii loo fulinayo habraaca nidaamka doorashooyinka iyagoo dabagal ku sameynayo dhaqdhaqaaqyada ergooyinka musharaxiinta iyo guddiga doorashooyinka inta lagu guda jiro doorashada. Bulshada rayidka ahi waxa ay qiimeyn ku sameynaysaa habka doorashada u dhacday iyadoo warbixin ka soo saari doonto. 3 ku xiridda bulshada habsami u socodka doorashooyinka. In bulshada ay ku xirnaato ama ay la socoto habka doorashooyinka u socdaan aad ay muhiim u tahay si taa loo fuliyo. Inta badan bulshada Soomaaliyeed kuma xirna habka doorashooyinka dalka ka dhaca haddii ay ahaan lahayd kuwa heer maamul goboleed iyo midka federaalka. taasna waxa ay keentay in dadku aysan aaminin waxa ka soo bax doorashooyinka. Si taas loogu waantoobo ururada bulshada rayidka waxa ay diyaariyeen xafiis ururiye xogta laguna baahiyo habka ay doorashooyinka u socdaan. Warbaahintaas waxay noqonaysaa maalinla, sitimaanla iyo bilabo. Intaba waa la baahin doonaa habka si u dhaca doorashada. Waxa ayna bulshada la wadaagi doontaa sida ay howlaha doorashooyinka u socdaan, isla markaana waxa ay soo ururin doonaa talooyinka bulshadu ka qabto doorashooyinka. Waxa la abaabuli doonaa doodo ku saabsan doorashooyinka. Howlaha la qaban doono xilliga doorashada kadib. Bulshada rayidka waxa ay diyaarisay howlaha soo socda si looga hortago wixii khilaaf ah oo ka dhalan kara habka doorashooyinka loo maamulay iyo natiijooyinkooda. Bulshada rayidka waxa ay diyaarinayaan khubaro ku xeel dheer sidii loo dhexdhexaadiyo qeybaha iskhilaafsan iyo sida looga hortagi karo khilaafyo ku fida kuwaasoo ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka. 2 waxaa la sameyn doonaa daaweynta bulshada ah social healing kaas oo loo fidin doono dadka cadaalad darada ka tirsanayo kana soo gaaray doorashooyinka. 3 bulshada rayidka waxa ay kala shaqeyn doontaa dowladda cusub ee la dooran doono sidii dalka loogu hirgelin lahaa doorashooyin qof iyo cod ah markii la gaaro sanadka 2024-2025. Wabillahi tawfiiq.